بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalaha sharafta leh meel walbood joogtaan aad iyo aad ay u mahadsantihiin waxaan idinku salaamay salaan islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caawa waxaa marti noo ah al-akh walaal sheekh cabdiraxiin shariif ayaa marti noo ah waxaan ka codsanaa walaalaha dhammaan meel walbood joogtaan inaad si niyad furan igula soo dhaweysaan walaalka midda kale waxaan idin sheegayaa insha allah waxaan weydii doonaa barnaamijkiisa su-aalaha diiniga ahay oo ku saabsanaa su-aalo furan su-aalo furan markii la yiraahdo waxaa qur-aan ku saabsan yihiin nebiga ku saabsan saxaabada ku saabsan dadkii muslimiinta ahaa oo macnaha taariikhda gale ku saabsan macnaha su-aalo mufiidaada dhammaantood marka insha allah ila soo dhaweey horta marka koowaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan dhowahay idinkana sidoo kale waad ku mahadsantihiin wajazaakum allahu khayra maasha allah jazaaka allahu khayr sheekh cabdiraxiin aad iyo aad baa u mahadsan sidaa nooga aqbashay haddana su-aasha koowaadan weydiinayna waxay leedahay noo sheeg khulafaa uraashidiin maca casharati almubashiriin ama haddaan si guud u sheego casharati almubashiriin biljanna saxaabadii tobanka ahay ee jannada nebiga ugu bishaaray sal alla alay slm iyagoo adduunka nool in noo sheeg magacyadood بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عشرة المبشرين بالجنة والتوان أفر وحويان خلفاء الراشدين أي ليل هذا خلفاء الراشدين وأفر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان سوكلة يو علي يجو أفر تانو حليل هذا خلفاء الراشدين lix kale ayaa jiro markaas haddii lagu daro waxay isku noqonayaan casharatu lmubashiriina biljanna lixda waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ibnu cawf radia allahu canhu waxaa kale ka mid ah talxa ibnu cubaydillaah waxaa ka mid ah saciid binu zayd sacad binu abi waqaas ayaa ka mid ah waxaa kaloo markaasi ka mid ah casharatu lmubashiriin markaasi ka mid ah sacad binu abi waqaas waa sheegay saciid binu zayd waan sheegay abu cubayda ibnu jaraax ayaa lix ah lixdaas iyo afartan markii laisku daro waxay noqonayaan casharatu lmubashiriina biljanna afar oo khulafaa rashidiin ah iyo lixdan haddii laisku daro waa tobankaas ayaan markaasi aan xasuusanahay insha allah maasha allah jazaaka allah khayr akhi sheekh cabdiraxiin shariif aad aad u mahadsan tahay sidaad noogu jawaabtay dadka jannada nebiga ugu bishaareeyey ka nool way badan yihiin laakiin tobankan hal xadiisa jamciyey su-aasha kale u gudbaynaa waxay leedahay yaa waayo saxaabiga ay malaa'igtu dhaqday magaciisa noo sheeg adoo mahadsan bismillaah saxaabiga markuu dhintay malaa'igta dhaqday saxaabigaas waxaa la sheegaa soo markaasi toddoba ku jiro inuu markaasi aaday jihaadka aaday soo markaasi janaawo qaba dhintay kadibna dhaqday malaa'igtii dhaqday saxaabigaas magaciis waxaa la yidhaahdaa xandala ibnu abi caamir radia allahu canhu ayaa la yidhaahdaa maasha allah sheekh cabdiraxiin aad baa u mahadsan tahay su-aasha afaraad waxay leedahay man iladii ihtaza ama su-aasha saddexaad man iladii ihtaza carshu raxmaan sheeg saxaabigii dhimashadiisa uu la gilgisha carshiga allaha raxmaanka ah saxaabiga markuu dhintay carshuraxmaanka gilgishay saxaabigaasi magaciisa waxaa la yidhaahdaa sacad binu mucaad ayaa la yidhahdaa radia allahu canhu saxaabi jaliil ayuu ahaa nabigeena sala allahu alay wasalam wuxuu inoo sheegay dhimashadiisii waxaa markaasi gilgishay carshuraxmaan magaciisa waxaa la yidhaahdaa sacad binu mucaad maasha allah jazaaka allah khayr sheekh cabdiraxiin aad iyo aad u mahadsan tahay sidaa nooga haqabtirtay su-aalahaas ku saabsan diinteennada ama raggii diintan usoo halgamay usoo dhintay dhiigooda u daatay xoolahooda iyo naftoodaba u baxshay ayaad sidaa nooga haqabtirtay taariikhdooda qeyb yar oo ka mid a aad iyo aad baa u mahadsantay akhi jazaaka allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaabay nooga egyihiin su-aalihii diintaada wax ka bara barnaamijkii ahay إن شاء الله أن كفى إيسن أن إسجارسينه مع السندين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.